السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta mawduucina waxaan ka sheekeynaynaa cudur aad u soo shaabaxay sanadadan dambe oo loo yaqaano hyperlipidemia. Hyperlipidemia waa dufinta jirka oo sare u kacdo. Sida hore idinku sheegay dhowr nooc ay leedahay dufinta: triglycerides, fatka, cholesterolka, phospholipid iyo waxyaabo kale oo badan. Markaan ka sheekeynayno hyperlipidemia, macnaheeda kama wadno all noocyadan dhan sare u kacay ee mid kamid ah sare u kici karo. Okay, hyperlipidemia markaa ku dhahayno waxaa hadda waxaa waaye mawduucyo badan oo soo hoosgalaya. Hadda midkaan xoog rabo ama focuska saaro waa midkaan lagu magacaabo cholesterolka markuu ziyaado. Soomaalida u taqaan cholesterol inkastoo uu jirin wax la dhaho cholesterol waa caadi waxyaabo aan jirkeena ka helno, laakiin cudur la dhahayo ma jiro cholesterol. aan in sharxo sida hore usoo sheegnay cholesterolka wuxuu u kala baxay laba nooc. Mid low density lipoprotein lahayo oo mid xun ah oo sababay in cholesterolkii uu cells-kii ama unugyadii dhexdooda ka soo saaro oo dhiig soo geliyo, iyo mid dhiig ka saaray oo cells ku xareynayo oo hadhowtina si loo bixin lahaay cholesterolka siyaadaha ama fatka siyaadada ka qayb qaadan. Okay, midka xun oo low density lipoprotein haddii uu siyaado wuxuu sababaa in fat badan ay ku soo aruurto dhiiga. Fatkaas badan ay ku xargagto xididada dhiiga dhexdooda oo hadhowti sababmo inay ciriiri ku sababto xididada dhiiga. ciriiri ku sababay. Okay, maxaa sababa marka inuu siyaado low density lipoprotein kan? Waxyaabo sababi kara maxaa kow waa in raashinka dufinta oo badsatay. Dufin badan qaadatay cholesterol oo raashin ka buuxaan oo dufin nooc kasta qaato waa qaadatay, waxa siyaaday dufinti. Okay, sababta labaad oo keenaysa waxaa waaye sigaar cabista badan. Sigaar cabistan waxyaabo badan ay keenayaan kaliya ma ahan hyperlipidemia. Okay, qofka cayilan inuu dufin badan jirkiisa ku jirto waa isla ogna. Physical inactivity waxaa waaye qofkan dhaqdhaqaaq ma sameeyo 24 saac ama waa fadhiya ama waa jiifa, wax dhaqdhaqaaq ma sameeyo. Exercise la'aantan ay sabab u noqon karto in fat badan ay sawasmato oo ay sare u kacdo fatka. Okay, maxaa kaloo keeni karo cudurka diabetes mellitus sida uu ku keenayo hyperlipidemia wuxuu noqon doonaa cashir gooni ah. Hadda laakiin wuxuu ku jiraa sababaha keeno hyperlipidemia. Okay, maxaa kaloo sabab u noqon karo? Waxaa kaloo sabab u noqon karo dhaxal ahaan in waalidkaadii ay qabeen cudurkan oo hadhowti adig ay ku soo gudbiyeen. Okay, hyperlipidemia markaan ka sheekeynayo waxyaabo badan sababi karo, laakiin asaga muxuu sababaa marka? Horta calaamadaha ka sheega hadii dhac cudurkan calaamad ma lahan, laakiin waxyaabo oo sababa waxyaabihii oo sababay calaamada yeelanayo. Tusaale intaan guda galin horta aan idinka sheekeyno saameynta ay jirka hyperlipidemia saameynta uu jirkeen ku leeyahay. Okay, dufinta badan ee xididada ku dhex socoto waxay buuxsamee ama ku xargagee darbiyada xididada. Markay ku xargagto waxay sababay in marinkii uu dhiiga maray xididada waasic ahayd oo dhiigi deeqi maray in agteeda darbiyaas ay caadi ag mari jireen oo waasic ahay oo dhiigi mari jiray in uu xargag ka sameysmo buur camal oo hadhowti oo sababo in jidkii uu cariiri noqdo. Cariirigaas oo sababa in meelo badan oo jirkeena ka mid ah ay heli waayeen dhiig ku filan. Tusaale ahaan lugaheena hadday heli waayeen dhiig ku filan waxaa gangrene wax la dhahayo ku dhici karo. Lugti inay dhimato madowaato dan lagu qasbanaado hadhowti in la jaro.
waa macquul. Okay, cudurkan dhibaatooyinka oo horseedi karo aan idinka sheekeeyo. waxyaabaha horseedi karo waa arteriosclerosis waxa la dhahaa. Arteriosclerosis waxa waaye darbiyadii ama xididadii oo adkaanayo oo awood u yeelan waayo inay kala fidaan. Arteriosclerosis waa xididadii oo adkaado awood u yeelan waayo inay kala baxaan. saas darteed inay xubin walba awood u yeelan waayaan in xubin walba ay gaarsiin waayaan dhiig ku filan. sidoo kale waxaa dhici karo oo maxay ahayd hyperlipidemia waxyaabaha oo sababa waxaa ka mid ah stroke. stroke waa in maskaxda ay heli wayso dhiig ku filan, kadib qaar ka mid ah maskaxdii ay dhimato ama qaybo ka mid ah maskaxdii ay dhintaan, oo qaybahaas dhintay shaqooyinkii qaabilsanaay la waayo. shaqooyinka ay qaabilsanaayeen in la waayo waxaa sababi karo ama horseedi karo in lug iyo gacan qofka dhaco. stroke dartiis ay sababtay hyperlipidemia. sidoo kale wax saddexaad oo hyperlipidemia sababi karo waxaa ka mid ah heart attack. yacni wadnaha asiga naftirkiisa wuxuu u baahan yahay quudin, wuxuu u baahan yahay dhiig. waxaa jiro xididdo waaweyn ama dhiig ha bombeeyaan ama jirka u qaybiyaan ama asaga naftirkiisa ha qaato wadna, yani in kuwa nafaqa uu ka helo coronary arteries yaryar jiro. kuwaasi haddii xinjir maxay ahayd dufin ku xargagto ayagayooba yaryaraa, haddii dufin ku xargagto uu wadnihii heli waayo wax ku filan oo dhiig ah, heart attack kuu dhacayaan, wadnaha waa ku istaagay, walaa kuu naxariisto. angina bacteris waa sidoo kale wadnihii ku xanuun, yani cariirigaas meeshaas aad ka dareemaysid in xabadkii aad ka dareento xanuun. gangrene waa midka hadda kasoo tusaalaha idinku siiyey. gangrene waa in maxay ahayd meelaha shishe sida gacmaha, lugaha, meelaha qaar adiga inay sababmaan dhiig, markay dhiig heli waayaan ay yani dhintaan dhiig la-aan darteeda oo madoowaadaan. kadib haddii lug tahay ama gacan tahay in la gooyo sababma. okay, sideen cudurkan uga hortagi karnaa? cudurkan waxaa looga hortagi karaa in la yareeyo dufinta badan aa isticmaalaysid, weliba dufinta saturated fat lahaa. sidoo kale dufinta saturated fat yani midda xaraga gasho casharkayani libid aan si fiican ugu sheekeynay midda yani dufinta midda xun ugu xun waa saturated fat midda lahaa. unsaturated aa jirto oo omega 3 iyo kuwaas laga helo, waa faa'iido badan yihiin kuwaas badso, kuwaan iska yaray. inaad aalamiiteyso. waxa labaad oo ugu hortagi karto waxaa waaye cudurkan in aalamiito ama socod dheer ama wax uu sameey adi inactivity ha ahaanin, shaqo la-aan ha ahaanin, yani soco beriwadan iska jiif. waxay u horseeday in dufintii ay kuugu sii hado cudurkan kugu imaado. okay, sigaar haddaad cabto waxaan kuugu talin lahaa inaad joojiso. daawintan cudurkan ma adko, waa la daawin karaa cudurkan, waa cudurada daawooyin kale, laakiin daawo toos ah oo ka taqaluseyso oo wuxuu ka mid yahay cudurada weligood kula soconaya laakiin lala noolaan karo. waa cudurada lala noolaan karo. daaweynta cudurkan kaliya kuma salaysna kaniiniyaal, waa in hortagan aan soo sheegnay iyo kaniiniyaashii isku darsato. daawooyinka loo isticmaalo hyperlipidemia waxaa ka mid ah statins kuwa lahayo, cholestyramine oo ah bile acid binding resins, maxay ahayd absorptionka kuwa joojinayo. adig waa waxyaabo badan ayaa ka mid ah sawirkan sida nooga muuqato. fiiro gaar ah, cudurkan amaanta ka sheekeynayo waxay Soomaali u taqaanaa cholesterol. sax, cudur cholesterol lahayna ma jiro, sida dadku u dhaadhicin lahaydeen ininka idin tala.
laakiin waxaa dhihi kartaa kolestaroolka igu kacsan dheh hadaa rabtid, saas waa qaadan karnaa. So haddii wax mugdi kaaga jiraan aa rabtid inaad libidkii hore aan u qaadanay aad